Coutinho waxa uu falab ku noqday kooxda Barcelona haddaba taasi miyay tahay sabab la xiriirtay in kabihiisa uusan ka jeexin xagga dambe waxa ay kula noqon kartaa captain balse rumayso tani captain maahan maxay tahay sababta uu Coutinho kabaha uu ku ciyaaro uu kaga jeexi jiray xagga dambe intii uu ku sugnaa kooxda kubadda cagta Liverpool xidig walba oo kubadda cagta waxa uu leeyahay dhacdooyin lagu xasuusto sida Kyle Walker oo isagu sigsaantiisa ka jeexa xagga dambe Sergio Ramos waxa uu caan ku yahay kaararka kulanka sida jaalayaal badan iyo waliba kaararka casaanka ah Luis Suarez oo isaguna lagu xasuusto sheeko la mid ah dhacdooyinkii lagu arkay filimkii caanka ahaa ee dincuunka ee Walking Dead ama meedkiisa cunaayay micnuhu waa inuu ku caanbaxay inuu qaniino dadka qaas ahaan xidigaha garoonka kula jira halka Icardi oo isaguna caan ku yahay khiyaanada iyo la wareegida xasaska xidigaha ay saaxiibada yihiin aynu u soo laaban warbixinta Coutinho isagu waxa uu caan ku yahay in kabaha uu ku ciyaaro uu ka jeexo xagga dambe ama uu god ku sameeyo goobta ku beegan ciribtiisa waxaana ay taasi dhacday intii uu ka tirsanaa kooxda Liverpool haddaba maxay tahay sababta sida dhabta ah Coutinho waxaa halka kore ee ciribtiisa ka soo baxa fin ama biyo gashi maadaama ay kabta ku dhigto halkaasi biyo gashigaasi ay sababto kabtana aad ayuu u xanuun badan yahay waxa uu isku dayay wiilka reer Brazil inuu si xeeladaysan kaga hortago isagoo aan ka maqnaanaynin kulamada kooxdiisa maadaama uu muhiim u yahay waxaana uu helay halka uu xanuunkaasi ku baabi'in karo waxa uu kabtiisa ka duleeliyaa halkii ay ku aadanayd biyo gashiga amaba halkii uu nabarku ku yiilay waa kaarto macquul ah oo ay sameeyaan caqilada kubadda cagta ciyaara iyo wixii uu falay Mats Hummels intii uu ka tirsanaa kooxda Bayern Munich kadib markii uu kabihiisa halka hore ee ku aadan suulka uu ka jeexay maadaama uu xanuun ka dareemay goobtaasi si kastaba Coutinho waxa uu muujiyay sida uu xeeladaasi ugu raaxaystay iyo in kabihiisa uu gadaal ka jeexay waxa uuna soo jiitay indhaha cushaaqda kubadda cagta caalamka kuwaasoo su'aal iska weydiiyay sababta ka dambaysa iyo sirta ku duugan xeeladan kooxda Liverpool ayaa ku qasbanaatay inay iska iibiyaan xidigooda reer Brazil kadib markii uu dibad joog ka noqday kooxdooda kana dalbaday inay ka iibiyaan kooxda kubadda cagta Barcelona qanaaska reer Brazil waxa uu lumiyay kalsoonida maamulka kooxda iyo taageerayaasha Barcelona mana uusan muujin qaab ciyaareed soo jiidasho leh oo lagu jeclaan karo iyo wax la mid ah jilinkiisii kooxda Liverpool intii uu qaybta ka ahaa waxa uu ku guuldareystay inuu boos ka helo weliba uu ciyaaro booskiisa rasmiga ah ee lambarka 10aad kadib markii uu ku biiray kooxdii qiimaha badan ku bixisay ee ka dhisan gobolka Catalonia xisaabta ku darso kabihiisa waa kuwa bad qabay oo gadaal kama uusan jeexin intii uu ku sugnaa kooxda Barcelona haddaba miyay taasi tahay sababta ka dambeysay hoos u dhicisa Liverpool kadib markii ay iska iibiyeen waxay la soo wareegeen laba saxiix oo miisaan leh sida Virgil van Dijk iyo Alisson Becker kuwaasoo Reds kula guuleystay koobka horyaalada Yurub ee UEFA Champions League halka Coutinho uusan isaguna koobkaasi kula guuleysan naadiga Barcelona walow koobab maxalli ah uu la qaaday kooxda milkiyadiisa iska leh Coutinho waxa uu suuqan ku biiray weliba si amaah ah kooxda Bayern Munich oo laf ahaanteedu weysay qaar ka mid ah xidigihii la dhabartu ahaa 10kii sano ee la soo dhaafay waxaana Coutinho halkaasi uu ku qaadan doonaa waqti amaah ah iyadoo Bayern ay haysato doog kale oo ay ku sii wada iibsan karto haddaba daawade hore miyaad u aragtay kabaha uu ku ciyaaro Coutinho oo godad ku leh halka cirbihiisa ku aadan magacaygu waa Shaafici Maxamuud Nuur Shaafinho aad ugu mahadsan tahay daawashada muuqaalkan